الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على قدوة المربين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم وفقنا بما تحب وترضى. أسبوع دواء حنك هذا اللي عرورتا وقيبة بدنا أو قيبني قيبتي ودن بيسي waxaan niri 3 qayb weeye. qayb ilmuhu xaq ayuu leeyahay intuusan askumin ama uusan aabihi iyo hooyadiiba isku imaanin. qaybna uurku jirka uu yahay, xaqna wuxuu leeyahay marka uu dibadda yimaado. qaar baan ka tilmaamay, hadda waxaan rabaa dib inaan ugu soo laabto qaybta hore oo ah ilmaha intuusan askumin. waxaan niri yani waa in loo raadiyaa qoys wanaagsan uu kusoo degto, hooyo wanaagsan. hooyada wanaagsan waxa weeye madrasadii ama dugsigii ilmuhu ay wax ka baranayeen ugu horeeyay, oo wax walbaba hooyada ayaa barayso. hadday hooyadu hooyo najaxday ay tahay, siduu nabiga sallallahu alayhi wasallam u tilmaamayba, raggana in lagu doorto diin iyo akhlaaq, gabadhana lagu doorto quruxda iyo nasabka iyo maaragta sharafta iyo diinteedaba. diintan inuu rasuulka tilmaamay inay diinta ugu muhiimsan tahay. sababta loo leeyahayna qofku markuu diin leeyahay yani ilmihii wuxuu hagi karaa, ilaahay buu ku xiri karaa subxaana wa tacaala. marka waxaan rabnaa marka ugu horeyso inaan qoyskii iyo habkii guurkii uu u dhacayay inaan wax ka tilmaano. qasadkeennu ma aha inaan yani gudagalno oo aan sii sharaxno, laakiin waxaan rabnaa in aan wax ka tilmaano maadaama guurku uu yahay thamrat alwalad, danta laga leeyahay miro wanaagsan oo ilmaha waxa la guranayo, miraha la guranayo ay yihiin waladun saalix, ilmo wanaagsan. yani guurku marka inuu ahaado wado saxa oo marka horeba wadadaa saxda aan marno si aan u helno ilmo wanaagsan. labadii ruux oo labkii dhidig ahaa oo isfahmay oo go'aanka gaaray inay guursadaan, midba midka kalena uu xushay, danta uu xushayna inuu la noolaado. mar labaadna qasadku uu yahay aabbaha, gabadhuna istiraahdo aabba wanaagsan ilmahaaga yani u dayday, wiilkana sidoo kale hooyo wanaagsan inuu daydayo. marka ilaahay labadoodaba waa laba jinsi oo kala duwan, mid walbana ilaahay xuquuq gaar ah ayuu saaray, dabcigiisa iyo abuuritaankiisana la xiriira oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay. qof walba waxa uu xamili karo ama jirkiisa iyo maarata dabeecaduhu u sameeyey shaqo ku munaasab ah ayuu ilaahay ugu talagalay. marka ninkii waa mas-uulkii koowaad ee guriga. maxaa laga rabaa marka hore gabadhii inuu ehelkeeda ka doono, oo ilaahay wuxuu tilmaamayaa, qur-aanku noogu sheegaya in idinka ehelka lagu guursado, oo meesha ay ka baxdo gabar la dafay iyo gabar maartaayo lala dhuuntay iyo gabar maxay ahayd weligeeda oo aan joogin aan la mehersado. yani marka wadada saxda ah marka horeba in aan doonta aan raacayna ay ahaato wada saxa, maadaama aan rabno walad saalix, ilmo wanaagsan inaan helno. marka gabadhii oo waalidkeeda laga raalinimadeedii markii la helay, kadibna raalinimadii waalidka in la helo oo waalidku uu raali ka yahay in uu gabadhan ninkan u guuriyo. arooskii mas-uuliyadiisii, weliimadii iyo wixii maarta qarash ay ku baxayay ilaahay baa wuxuu dul saaray ninka. gabadha meher alla iyo meherkay sheegato inuu siiyo waa xaq ragga lagu leeyahay, ilaahay uu saaray subxaana wa tacaala. guriga la dhigi doono iyo qalabkiisa iyo habeentiisa waxaa la dul saaray ninka ayuu ilaahay dul saaray subxaana wa tacaala in la helo guri ay degaan. biilka yani gabadhaas biilkeeda iyo nafaqadeedana ilaahay wuxuu dul saaray ragga ayuu saaray. ninka mas-uulka ka ah oo guursada ayuu ilaahay saaray guriga kiradiisii, maarata biilkii, ilmaha la dhali doono ee uurku jirka xataa markay ku jiraan inuu nafaqeeyo ilaahay isagu dusha ka saaray oo mas-uuliyadu ilaahay u xil saaray ay tahay. wuxuu kaloo gabadha hadday xanuunsato caafimaadka inuu maarata daaweeyo, inuu siiyo iyo wax alle waxay u baahan tahayba ilaahay asaga ayuu dusha ka saaray. welina ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wacaashiruuhunna bilmacruuf, cushro wanaagsan, nafsiyaadkeeda inuu gabadha la ilaaliyo oo aysan walaxsanayn oo walbahaarsaneen, ooy ku degan tahay nafteeda, istiqraar uu jiro oo gurigeedii iyo ninkeediiba ay nafteeda ku degan tahay. waa arin ninka laga rabo oo ilaahay mas-uuliyad uu saaray subxaana wa tacaala. waxaasoo idil
إلهي قرآن كحكولي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني القرآن كتلمامي الرجال كرقي إنه إلهي قوام كده قوام معناه هذا مسؤولين قرقين مسؤول أول كيهين awaamirtooda meesha ka shaqaynayso ayaga ay amar bixinayaan waxaas yani oo haweenkii dushooda cala nisaa maxay ku heleen bima fadala Allah ba'dhum ala ba'd quwwada iyo xooga iyo kartida ilaahay dheeraadka oo uu raga siiyay iyo wabima anfaqu min amwalihim iyo maalkooda nafaqeen wixii aan maanta oo dhan sheegayn oo ah guriga in la kireeyo oo biilka la bixiyo oo martidii la qaabilo oo ilmaha quudkoodii mas'uuliyadoodii la qaado oo arooskii waliimadii iyo maaragta meherkii oo dhan la bixiyo iyo gabadha waxay u baahan tahay oo dhan dahab iyo wixii qarash oo galo dhan yani wuxuu ku kasbaday maalkaas uu bixiyo wuxuu ku kasbaday ninka in la adeeco inuu marka hore mas'uul guriga ka yahay marka labaad in la adeeco oo ilaahay baa amarkaas siiyey xuquuqdaas ninka ilaahay baa siiyey in la adeeco gabadhu inay ninkeeda adeecdo guriga aysan ka bixin in ay maaragtay guriga soo gelin cid uusan asaga raalli ka ahayn in aysan maalkiisa xafido aysan siin cid uusan raalli ka ahayn inay nafteeda xafido يعني iyo maalka asaga ay u xafido oo waxa kale oo aan loo ogoleen ay ka ilaaliso yani waxa soo dhan oo mas'uuliyad ah ayuu ilaahay saaray subhanahu wa ta'ala nabigana wuxuu leeyahay law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartu almar'a an tasjuda li zawja hadii aan ruux kala farayo in uu u sujuudo oo meesha ugu dambeeyo uu adeeco waxaan fari lahaa haweeneyda ninkeeda inay u sujuudo yani ma jirto way yani xaq qiisa inuu sareeyo ayuu natusaya oo heer yani sujuud uu ku sigtay heerkaas ayuu mariyaa nabigana wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam haweeneyda markay ninkeeda adeecdo ida sallat almar'a khamsa haday shanteeda salaad dukato wa saamat shahra bisha ramadaan ay soonto wa hasanat farjaha ay farjigeeda xafido wa ata'at ba'laha ninkeeda ay adeecdo buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam dakhalat عن أي أبواب الجنة شاءت جنة أي جلس يعني إلا أضيعه وحد إكت أمرك يا بحي الله بحي حد كوه ليس جنة رالني ماذا إلهي أنت سيكون فلان مركا إلا أضيعه أو مرتي سلقاته وواحد جنة اللي بدشي أو اللي هلي مركا هوانا إذا وناكسن يعني النبي وحكوت المام وناكسن إن يتهي أو جرجو دن هذه هوانا إذا وناكسن ته ومارت هجاجيه نبينا وحيري صلى الله عليه وسلم قريقة وحكا وين بوكتل ما من رسولك وحيري الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة الدنيا كورنا وح راحة وماركت الراحة بسيطة وفضوضة هدنا تن ugu khayrka badan oo maaragta raaxada haweeney wanaagsan marka ninku markuu haysto haweeney wanaagsan nolosha dhan ayuu haystaa way macna adduunka dhan ayaa gacantiisa ku jirto marka qoyska haduu uu hooyada wanaagsanaato wax badan ayaa hagaagayo ilmaha aan rabna inay hagaagaan way hagaagayaan sababtoo ah hooyadii baab wanaagsan oo ahlu diin ah oo ilaahay ka cabsanayso yani carabtu waxay tiraa faaqidu shay la yu'ti qofku wuxuusan haysan dadka ma siiyo yani qof aan alla ka cabsiga iyo dhaqan wanaagsan aan lahayn asaga yani ma dhici karto ubadkeedina inay iyadu hagto oo wanaag iyo khayr ku hagto marka iyadu markay wanaagsan tahay laakiin ilmaheedii iyo qoyskii dhamaanba waxay noqonayaan dad wanaagsan marka yani arintaas ayaa laga bilaabo guurkii baa dhacay waliimadii baa dhacday labadii ruux baa maanta isguursaday marka wuxuu amrayaa shariicada waxay amraysaa inay duceystaan mar walba oo ilaahay la baryo adigoo xulanaya qof wanaagsan ayaa laga yaabaa inaad ku fashilanto oo aadan ku guuleysan taas waa qada iyo qadarka ilaahay baa qoray dadaalka marka inaad adiga dadaal un baa laga rabaa inaga juhdigeena aan waxba ku bixin karin ilaahayna sida anbiyada ilaahay u bari jireen labadii ruux markay caawa aqal galaan ama isguursadaan shariicada islaamku waxay qabtaa ducadii wali way socotaa markii horena waa la duceystay ilaahay baa la bariyay istikhara loo dukaday ruuxan oo ma aragtay inuu khayr ku yahay ilaahay baad kala tashatay waa ilaahay isaga garanaya ruuxan isaga wax kasta oo aad iska daydo oo aad raadiso ilaaliso dhaqanadiisa hadana wax badan baa ka qarsoon marka ilaahay baad la tashatay hadana istikhara dukatay marka kadib hadana habeenkaas wuxuu ilaahay farayaa marka ay isku galmoonayaan in ilaahay la baryo oo baryadu يعني أي واحد جوكتا أي تهي أو إلهي مارتا لبريا محا إلهي لقبريا إلهي إنو نقفوغيو الشيطان وحا نقول رزاقي دونه
oo ubad ahna waayo hadafka guurkaba ma aha kaliya istimtaac jirka laakiin qasadka iyo danta loo socdaba inay tahay walad saalix in ilmo wanaagsan la helo cimaaratul ardi la helo oo dhulkan wax badbaadiyo oo maaragta camiro oo buuxiya la helo in ay dadku bataan oo tarmaan oysan dadku dabargo'in hadafku iyo qasadka laga leeyahay kaawe marka saa darteed ayaa ilaahay waxa laga bariyay sidoo sunnada noo tilmaantay in shaydaan ilaahay laga magan galo ayaga ay ka magan galaan labadii ruux waxa uu ku rasaaqi doonana ay uu ilaahay ka fogeeyo yani shaydaan taaban yani ducadaas waa wax muhiim ah waxa kaloo cajiib ah waayo quraanka qisaska yani ku soo arooray danta laga leeyahay waxa weey inaan anagu ku dayano quraanku wuxuu tilmaamayaa ilaahay wuxuu leeyahay إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قرآنك وحوت الماما يا امرأة عمران حاسكيسي وحال أورنجري حنة بنت فاقود ومريم هو يذيت waxay meel bay fariisatay markaas waxay aragtay shimbiro isdumaya oo xabadka is saaraya oo afku wax isku gelgelinaya oo ilmahooda wax u gelgelinaya aad ayay waxay u jeclaysatay in ilaahay ubad siiyo waayo in Allah ala kulli shay'in qadiir ilaahay wax kasto awooda saadarteed ayay ilaahay waxay wareysatay inuu siiyo ilmo markaasna ilmahaas ay nadarto oo ilaahay shardi ay tira ilaahu hadaa ilma isiiso ilaahu adaan ku hibeynaya oo rabaa inuu ku caabudaan ilmahaasi baytul maqdis ayaan geynaya oo ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu ka aqbalay fataqabbala yani ilaahay wuu ka aqbalay subxaanahu wa ta'ala ducadeedii markaasay waxay qalbiga ka jecleed inay wiil dhasho markaasay waxay tiri qaalad rabbi innii wada'tuha untha ilaahu gabar baan dhalay yani wallahu a'lamu bima wada'tu asagoo ilaahay og waxa ay dhashay bay hadana waxay tiri ilaahu gabar baan dhalay walaysa dhakaru kal untha gabdhuuna sida wiilasho kale masjidka mar walba joogto uma joogi karaan laakiin waa inni samaytuha gabadhaas waxaan u bixiyay tiri maryama nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ma min mawlud yulad illa masahu shaytan ilma ma dhasho yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam haduu dhashana ya masuhu shaytaana taabtu yiri xiina yulad markuu dhasho kadib fayastahilu saarikhan ilmihina wuu qayliyaa marka uu shaytaan qabto min masihi qabashadiis illa masahu iyahu illa maryam wa ibnaha wuxuu yiri rasuulka kaleey sanaan ruux ma dhasho illa haduu dhashana shaydaana murujiya ama kilida ka taabta xadiis kale yani markaasuu qayliyaa illa maryam wa ibnaha ilmo walbo markay dhashaan way qayliyaan laakiin qayladaasna kilida ayaa ibliis ka taabtay ama jirku ka majuujiyo sidoo rasuulka xadiis kale ku sheegay maryama iyo wiilkeeda oo ahaa ciisa nabiyullaahi ciisa sallallahu alayhi wasallam ayaa ka badbaaday maxaa u sababa inay ka badbaadaan labadaas waxaa u sababa ducadii maryama hooyadeed ciisa ayaydiis ayaa waxa ilaahay ka bariday in uu ka fogeeyo ibliis waxa ay dhali doonto iyo waxa ay sii dhali doonaan inaan ilaahay ka barino oo aan ilaahay ka tugno ubadka aan hayno iyo kuwa aan dhali doono iyo kuwa ay sii dhali doonaan way annaga tan Soomaalinahay maanta jiilka hadda jooga wax bedelo ayuu u baahan yahay oo maartayo ku haga wadankan iyo dadkan meel wanaagsan marka in hooyada ay ilmaha ilaahay aga barto oo markay ogaato guurki kadib inay uur leedahay gaar ahaan 4 bilood ee hore يعني 120 bariye hore intaan nafta lagu afuufin ilmo markuu 4 bilood u dhamaatay ayaa nafta lagu afuufa sidoo nabiga noo sheegay cilmiguna uu noo sheegay intaan nafta lagu afuufin in ilaahay loo bariyo inuu saalix ilaahay ka dhigo inuu maaragtaayo ilaahay baari kaaga dhigo ilaahay mid caadil ah wadanka maaragtay xukumo oo caadil noqdo ilaahay inuu ka dhigo ilaahay inuu bulshadan mid wax ka bedelo ilaahay ka dhigo ilaahay inuu mid maaragtay adduun iyo aakhiraba guuleysto ilaahay ka dhigo ilaahay inuu maaragtay ahlu janno ka dhigo yani wax badan in waalidku uu duceeyo ilmihiisa janiin ah ma fi badni caloosh hooyada ku jiro nafta marka lagu afuufayo oo ilmo saalix ah marka qisadaas waxaan ka faa'iideysanaynaa in aan hadaan nahay hooyooyin aan ilmihi ilaahay u barino gaar ahaan jiilkeena anaga Soomaalida oo u baahanay in wax badan waalid badan in ilaahay bariyo si loo helo awlaad saalixiin ah kadib hooyadii uur bay leedahay sidaan u ogaanayba wayba dhashay
hooyadii way dhashay 9 bilood uu dhamaaday way dhashay sunnadu waxay qabtaa ilmihii intii aan ka soo hadalnay waa xaqii oo waalidku ku lahaa weeye hadda waxaan tilmaamaynaa ilmuhu markuu dhasho xaqa uu leeyahay waa maxay oo labada waalid uu ku leeyahay yani itbaacu sunnada in la raaco ilmuhu markuu dhasho yani shariicadu waxay qabtaa tahni'a in la farxo oo la soo dhaweeyo oo loo duceeyo oo maaragtaayo maxay ahaydto la muujiyo in lagu farxay ilmahan dhalashadiisii gurigan cusub uu ku soo degtay ama uu yimid oo ilaahay subxaanahu wa tacaala shalay 2 ay ahaayeen maantana ay 3 noqdeen yani marka tahni'a soo dhaweyn yani in maaragta loo tahniyo wuxuu kaloo xaq u leeyahay ilmuhu markuu u dhasho in dhegta midigta looga aadaamo dhegta bidixna looga iqaamo sidoo rasuulka yiri oo sunnadii aan u raacayno nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man wulida lahu mawlud فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره صبيان روحي الماء دشو من ولد له مولود قفك الماء الله دلو فأذن في أذنه اليمنى دكت مدكت أجا آدامه وأقام في أذنه اليسرى دكت بدحدنا أجا إقامة الصلاة لم تضره صبيان صبيان المها ما تابته صبيان وجين المها كدعه السيبة مركي دشان ilmaha wuu ka badbaadaa buu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam yani waxa la oran karaa maanta ilmaheena wada waalan iyo dad anaga dhanaad kuween fiyow iyo kuwa jiran aan la kala garanaynin yani Subyaan waxaad moodaa in anaga dhan ay caruurtii markay yaraayeen ay wada galeen in badan waxa xadiiska laga fahmayaa aadaankii oo tawxiidkii ku jiro iyo shacairta islaamka in dhagtiisa waxa ugu horeeyay uu maqlo ay noqonayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xirayo ruuxdiisa ilaahay in la baro lagu xirayo subxaanahu wa tacaala oo ilaahay inuu rumeeyo waa ilmahan marka horeba muslim way dhashay oo iyagoo muslim ayay gacantayada soo galeen in markaas ilaahay lagu xirayo subxaanahu wa tacaala xaqa kale ilmuhu leeyahay waxa weeyaan marka uu dhasho dhanxanaga in timir inta la ruugo oo la jilciyo dhanxanaga laga mariyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam asxaab badan ayuu ومارته عرورته أمريء وحوليه يعني صحابي رسولك صلى الله عليه وسلم ولد لي يعني غلام ويل بعد لقيت لبيري صحابي عن أبي موسى اللي هذا مرك لقيت لبيري فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم يران رسولك أولئمت فسماه إبراهيم وقوم قعدر إبراهيم وحنكه بتمرة يعني دنحنقا وحو كمريي تمر ودعا له إلهي بأبريي بالبركة والرفع يعني إن إلهي أبركي أو وناجي أي إلهي المهن أقبري مركو حوان إن دنحنقا المها لوغترو ومعنسدو ودقدوقه ماركتا تمرتاس ووح ugu horeeyo oo markuu dhasho inuu helo loo baahaya xagga nafaqadana timirta qiimaha ay leedahay waan garanaynaa xagga diintana waxa weey wax macaan ugu horeeyo afkiisa galiyay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu barakeeyay xaqa kale ilmaha leeyahay waxa weeyaan in loo walqalo maalinta 7 ay u tahay in ilmaha loo walqalo nabigana wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات يعني ويلشنا إن لما نيف لوغو والقلو قبضنا نيف وين لوغو قلب الرسول صلى الله عليه وسلم مالنت لو والقلو ينا ومالنت أي تضبط أتحي وحوك له الرسول كيري صلى الله عليه وسلم وحق من يعني حقوق ذا المو وليه كم ذا يعني إيضا إن مالنتاس لوغو مقعدرو يعني مقع لو بحيو نبي نوحي صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم يعني إذنكو يعني وحال إذنكو يالي دونا مالنت يوم القيامة ومقعيدين مقعيد آبياشين مقعيد المها أبحنا إنسان فأحسنوا أسماءكم مقعيدين وناجيه بالرسول عليه السلام مركا حقا وإلمه ليه وحكم إذا إن لو بحيو magacaasina magac wanaagsan inuu yahay waayo ruux markuu weynaado magacaas kama bedeli kara mana sahlana laakiin waalidka marka hore u bixiyay asagoo war uma haynin asagoo 7 maalmood jira loo bixiyay marka ilmaha in magac wanaagsan loo bixiyo macnuhu uu magacaasi ku fadhiyeen inaad fiirisid ee aadan iskaga bixinin magac yani hadda tusaale Yurub oo kale waa wadaman gaalo يعني بارلين أو كلام المها أد أبحنيس مقع أبحنيس وأذيقنا إلهي وكويدين دونا يوم القيامة يعني إنا تفير 6 مقع ونكسنا أو بحسيد وين المي مركا مقع عسمركي لو بحيوه حقك لو أساقنا المها أوليهي أو مركي لو والقلي أو مقع لو بحيي أو لو دعيي
وحقوق داس أو معركة تضبط سديد جارية أنت المعني وحقولوا ليه إن لجده مالين تاس تضبط أي أطهى المه إن لجده يعني ويل كارهان هدويه إن لجده وحقولوا حق ليه إن تيمها لجا حيره مالين تاس تضبط كإلمه وحان أجاني يعني مركو دشوا حص حقوق أيوليه يعني واحد عي مالمها كمذا أي عمر بن خطاب زمن كيسي أي والد سو دعوودي ويلكيسا كدعووني إنو عاسي هي عمر بعد دمعي ilmihii inuu xiro wiilkii inuu xiro markaasuu wuxuu ku yiri Umarow anigu xaq ma leeyahay markaasuu yiri ha intaadan xaq uusan kugu yeelan ayaad adigu xaq ku leedahay markaasuu yiri Umar wiilkii baa wuxuu yiri xaqayga maxaa kamid ah markaasuu tiriyay arrimahan hadda aan sheegay oo anigu aan sheegay oo inuu magac fiican u bixiyo inuu maxay hooyo wanaagsan u dayday wax lamid markaasuu wiilkii wuxuu yiri Umarow aniga inta maanan helin hooyadaas hooyaday magacaas liirada hooyo gaala ah oo kristaan ah yani aniga magacayga magacaas liirada waxa aad tirinaysa midna anigu xaqaas maanan helin aabiibu intuu u yeeray Umar ayuu wuxuu yiri yani intuu sanaaq kugu noqonin oo caasi kugu noqon adiga caasi ahay orod markaasuu ilmiina sii daayay oo san xirin marka yani waxaan tilmaanay hadda ka hor in إلهي أقدر دارمي والدين يعني يوصيكم الله في أولادكم أبدكينا يعني أي إلهي أبدكين أي إلهي نقدر دارمي مركا يعني وحويان المو انتو سن الساق حق لغوية لن أي مركو هوري الساق حق كل يهي لبدا والد نفقوا لها مركي وجوغي علاش هو يديس مركو كجر المي حق أي والد كلها حدا المي وصوبحي يعني المي مركو صوبحي حق أي ليه وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني إن مولود كده شيء بيل أيوليه نفقوا ليه إيوه مرشبة انت بواليه ناس إن لنجيو ليه حقوق بدنوا ليه مركا اسبدل إنا سمعنا أيان ربناني اسبدل يعني بلشدنا wax badan ayaa qaldan wixii qaldana ee hore waxaan rabnaa inaan saxno oo uu marka ruux walbaba meesha ka qaldan uu ka hagaajiyo hadaan doonayno in ilmo wanaagsan aan dhalno yani waxaan soo tilmaanay in ilmuhu xaqaas uu leeyahay aabihina uu mas'uulki koobaad uu yahay inuu gurigan hogaamiyo waxa uu ku helay in la adeecana ay tahay nafaqada uu bixiyay biilka uu bixiyay mas'uuliyadda gurigan uu qaaday intaas weey xoog uu Ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala marka saadarteed hooyada shaqo ayaa loogu talagalay inay gurigan mas'uul ka ahaato labaad inay ubadka barbaariso oo yani ninkeeda inay adeecdo gurigiina ee iyadu sakan ka ahaato hadaba markii hooyada waxaan aga baahanaa inay ahaato ilmaha tarbiyeynayso hooyo aan walaacsanayn walbaharsanayn qalqal iyo isla hadal iyo hurdal'aan aysan haynin oo aan ka walwarsanayn yani nafaqada iyo waxay cuni doonto ilmahooda nafaqadooda iyo waxay cuni doonaan ka walwarsanayn waxaan soo neeray ilaahay wuxuu yiri ragga وعاشروهن بالمعروف نفسيات كود إن إلاليان كبدي مركز نفسيات كده إلا إلالي ووح واجب رجع كأه يعني أوبت كسي أو مارت أو تربية سنة نفسيات كده وإنه دقية هاي وإيسن إسل هذا الإقلق إضراب إيسن قبين وإن إيسن كفكرين اللقمة العيش محي عني دونتا محي المهاسين إن شاء الله أسبوع الصوص عضنا أيان ماركتا المهكرة كهذه دورنا دي بإذنه وبالله توفيق